maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan Soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul Soomaaliyeed oo xoroobay dhacdadaas tobanaan kun oo Soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada Hargeysa fagaaraha calankii Britishka ahaa lagu dejinayay calankii Soomaaliya ahaa calankii Soomaaliya lahayd oo urtayna lagu saaray hase ahaatee dadkeena aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda waxaan u sheegaynaa in calanka buluuga ah astaanta qaranka Soomaaliyeed meeshii ugu horeysay oo laga taagay isagoo xora ay ahayd magaalada Hargeysa 26 Juun 1960 guushaas oo loo dabaaldegay ka sokow kumanaan Soomaali ah yaa isugu soo baxday farxaddaas xornimada 26 Juun waxay ku dhawaaqayeen oo dalbanayeen si aan shuruud lahayn in loo mideeyo inay la midoobaan gobollada koonfureed ee Talyaanigu markaas haystay ee waalahooda ahaa afar maalmood kadib iyaguna waa xoroobeen 1 Luulyo 1960 xorriyadda ka dhacday 26 Juun gobollada Protectorate Somaliland waxaa laga soo hooyay isku duubnaan iyo midnimo shacabka Soomaaliyeed waxaana kaalin horseeda ka qaatay suugaantii wadaniga ahayd ee abwaanadii ay ka mid ahaayeen Xaaji Aadan Afqalooc Barkad Cas Cabdullaahi Qarshe Cabdullaahi Suldaan Timcadde Xuseen Ow Faarax Cali Sugul Qaasim iyo tiro badan oo halkan aan ku soo koobi karin dharaartaas markii uu hubsaday in calankii gumaysiga la laabay Allah u naxariistee Cabdullaahi Suldaan Timcadde waa kii inta uu dadkii meeshaas wiil ka soo dhex baxay tiriyey gabaygii taariikhiga ahaa oo taariikhda galay oo oranayay saaxirkii kala guurnaye sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaasna siib ka nasaar wuxuu ahaa halgan wadareed ay hogaaminayeen xisbiyadii ay ka mid ka ahaayeen SNL USP iyo SYL hankii iyo halgankii xariirta ahaa guushii la gaaray 26 Juun 57 sano kadib markii aan dib u milicsano maxaa noo soo baxay waa su'aal u baahan in la isweydiiyo waxaa noo soo baxay laba dhacdooyin yaa noo soo baxay dhacdo farxad leh oo aan soo marnay iyo dhacdo xanuun badan dhacdada farxadda leh waxay ahayd mid qurux iyo geesinimo xambaarsan waxay ahayd mid gobonnimo iyo midnimo xambaarsan iyo mid qaran Soomaalinimo xambaarsan dhacdada labaad waxay ahayd mid xanuun badan oo xambaarsan colaad iyo gunnimo mid xambaarsan burbur qaranimo tahriib xajir saboolnimo qabyaalad iyo qabjab labadaas arrimood tan dambe in ay daboosho tan hore waa nasiib darro waxaa ka sii daran in dadka maanta jooga ay aqbaleen nasiib darradaas ha u badnaadaan dhalinyaro oo markay arkaan xaaladdu inay adag tahay tahriiba ama qaxooti noqda ama qaarkood qoladan dhibka badan oo dhibka ugu haysa ee u yartaan oo maskaxda ka xadaan waxay ahayd dhalinyaradu inay noqdaan xooggii dalka waxay dhalinyaradu ahayd inay noqdaan kuwii badbaadiya qaarnimadooda iyo dowladnimadooda waxaa kaloo iyadana nasiib darro ah in ehel Soomaali ehel wada ah oo wada dhashay iyo hilba aan kala go' lahayn isla markaasna ay qaar yar oo kooban oo doonaya inay hayndaab lagu kala hayaan walaalayaal haddaba xuska 26 Juun waxaa walaalaheenna gobollada waqooyi dhalinyaro iyo waayeel rag iyo dumarba
aan ugu baaqaya inay tahay mas-uuliyad inoo wada yaalla inaan dib u hanano qarannimadii iyo midnimadii dalkeenna iyo waddankeenna iyadoo taariikhdeenna dhow qaybteeda xanuunka iyo foolxumada leh ay tahay inaan ka gudubno si aan u gaarno mustaqbal ka wanaagsan kan maanta aan ku sugannahay walaalayaal konton iyo toddoba guuradii 26 juun waxay ku beegan tahay anigoo sanadkan ah madaxweynihii qaranka isla markaasna waxaan dib u xasuusanayaa dabaaldegyadii u dhacay doorashadii dabaaldegyadaas ay isugu soo baxeen ayna soo dhoweeyeen dhalinyaro fara badan waayeen rag iyo dumarba oo gobol kastoo Soomaaliyeed jooga waxay ahayd fariin hankeedu uu aad u weyn yahay saldhigeeduna uu ahaa nabad iyo nolol midnimo iyo cadaalad marka munaasabadan waxay tahay mid aad iyo aad loogu weyn ama ugu weyn taariikhdeenna waxaana dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeynaya 57 guurada ka soo wareegtay maalintii calanka Soomaaliyeed oo xora laga taagay dhul Soomaaliyeed waxaan baalkayga hambalyada aan ku khatimaya inaan soo xigto erayadii suugaanta ahaa ee ka oohaysay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn Khadra Daahir Cige waxaa tiriyey maansadaas Shukri Galay erayadaasi waxay ahaayeen isma huri karo hilib wada dhashay iyo hayb qura ayaan nahay isma huri karo hilib wada dhashay iyo hayb qura ayaan nahay anuguna walaalaheen reer Soomaaliland sidaasoo kale waxaan leeyahay walaalayaalow isma huri karo hilib wada dhashay iyo hayb qura ayaan nahay hambalyo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ilaahay ha nooleeyo Soomaaliya ha midowdo